waxaa igu kalifay maadaama ilaahay aqooni siiyey waxaan jeclaystay intii anoo aan sariirta jiifa aan ku dhimo lahaa in aan ku dhinta anigoo dadkayga caawinaya oo lay dhihi lahaa indhoolaata meeshaad iska fadhi in aan cilmigayga ilaahay siiyey oo ummadda ugu deeqa. waa cabduqaadir maxamed aadan oo loo yaqaano macalin xiito. waxa uu ka mid ahaa macalimiintii Soomaaliya dagaalada sokeeye ka hor. waxa uu muddo ku noolaa Minnesota uu si mutatawacnimo ah dhalinta ku bari jiray maadada xisaabta isagoo soo saaray jiilal kala duwan oo qaarkood ay ku aflaxeen waxbarashada sare. sanado badan oo dhowra uu badqabay wuxuuna ku socday indhihiisa. macalin xiito hadda waxba ma arko laakiin weli xisaabtii buu yaqaan uuna dhigaa. xilliga barafka, kulka, roobka ama goor kasta oo u yimaado qof caawinaad uga baahan maadada xisaabta macalin xiito uu u soo baxaa wuxuuna u soo fuulaa dhismo dheer oo leh jaranjaro oo ku yaala xaafad ka mid ah xaafadaha ay Soomaalida Minnesota ku badan yihiin. macalin xiito waxa uu leeyahay taariikh noloshiisa ah oo uu la baxay shalay iyo maanta oo ah maalmihii uu soo maray ugana sheekeeya dadka magaalada kula kulma oon hore u aqoon. maxay weydiiyaan dadkaasi marka la yiraahdo waa macalin xisaab? inta badan dadka waxay weydiiyaan maxaa la yiraahdaa dadka qaarkood waxay weydiiyaan waa in la adaysi wax u dhigtaa. haddaba su-aasha isweydiinta leh waxaa waaye dadkeena hal waxaa ka maqan qofka indhala yahay indhaha cilmiga ma ku jiraan. cilmiga wuxuu ku jiraa maskaxda iyo caqliga. macalin xiito waa indhala yahay welina fasal buu ku jiraa. waxaa su-aal ah sideeba u ilaaliyaa ilmahan fasalka ugu jira akhlaaqdooda kii su-aal qaba ku ogaan karaa xilligana ugu ilaaliyaa. marka waxaan sameeyaa koodadaan leeyahay oo aan ardayda ku xukumaa. markii aan saboord istaaga waxaan yidhahdaa 4x9 micnaheeda 4x9 waxaa waaye hala aamuso waaye nin kasta afkiisa qabsado qof dhaqa hadli karaa male. qofka hadduu su-aal qabo uma jeedi aniga marka hadduu gacanta taaga uma jeedi marka waxaan baray qofkii su-aal qaba waa inuu yidhahdaa 3x8 hadan waa uga jawaabaya. midda kale hadduu ardayga kalaaska dhammaada ama galaaska u dhammaada ma yidhahda galaaska waa dhammaaday waxaan ku heshiinay code la yidhahdaa 6x8. A minus 1 you change it A equal 1 and A plus 1 A equal minus 1. wax aad cajaab waaye hiba ilaahay bixiye weeye. nin indhala oo camoolo ah oo sabuurada markuu soo istaago aad isleedahay ninkaan dee waxba indhahaba kama qabo. qofkaasi wuxuu ahaa Faarax Urshe oo 2 ilmood uu dhalay Sabti iyo Axad kasta u keena macalin xiito si ay uga faa'iideystaan maadada xisaabta. wuxuuna u soo socdaa qadar dhan 30 daqiiqo oo baabuura. wuxuu kaloo iigu daray in 6 bilood oo ay la joogeen macalinkan caruurtiisu ay ka faa'iideysteen. way hooseeyeen labadooda wiil maadooyinkii dhiida ah markaan halka keenayay midda ugu hooseysa B+ weeye hadda iskuulka markaan tago aan alaysho gradeekooda. runtii marka uu indhihii wuu beelay ilaahay amarkiis laakiin macalin xiito qalbigiisu aad buu u qoyan yahay weli. waa run macalin xiito indhaha uu beelay laakiin qalbigiisa qoyan. qofka sidaa yiri waa dhakhtar Saxarle Jaamac oo Minnesota ka ah dhakhtarada ilkaha. wuxuu macalin ugu ahaa Soomaaliya iyada iyo anigaba. dhakhtar Saxarle waxay weli xusuusataa qaabkii uu ardayda ugu dhigi jiray. marka macalin xiito habku u dhigi jiray waxay ahayd hab dacmo ama qofkii aan ku fiicnayn ama aan jeclaysanayn uu u jilcin jiray oo wixii maaragtay u fududaanayaan. waxaasna qaabkaas wax loo dhigo qof walba ma samayn karo runtii laakiin aan waxaan aaminsanahay macalin xiito waa wuxuu ilaahay maaragtay qofkan u sameeyo inuu dadka maaragtay wax u dhigo qof walba wixii ku adag yihiin uu jilcin karo. dhakhtarada ayaa qabta waxa xiita isagoo indhala ku xambaaraya inuu weli fasalka yimaado ay tahay jacaylka uu u qabo macalinimada. macalin lama oran karo macalimiin badan baa jira macalimiin isku sheega laakiin yimaado wax dhiga ka baxa isagoo laakiin ciyaalka uu ka warhaya reeruhu uu ka warhaya ilaa hadda indhihi baa laakiin wuxuu u hayaa jacaylkiiba hayaa waxaasoo kale wax maaragtay waa xagga ilaahay macalin xiito waxa uu ku faraxsan yahay in xilligan uu maanta u bixiyay uu nasiib u helay inuu naftiisa wax barto fasalna uu ku noqdo. laftigeyga iskuul aada oo waxaan qaataa kalaasada la yiraahdo Braille dadka dhowlayaasha afarta ee bartaan oo kale waa bartay computerkaan bartay sida emailada loo diraa. marka aniga laftigeyga hadda waxaan isku diyaarinayaa inaan dib iskuul ugu noqdo. marka shalay iyo maanta waa ka farax badanahay kana caafimaad fiican alxamdulillah.